الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maantay waxaan halkaan u imid inaan baaq u soo jeediyo xurgufta ama arrinta ka dhex taagantay walaalaha gobolada dhexe. inta aanan u gelin waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed, kacdoonka cusub, dhiigga cusub, dhaqdhaqaaqa cusub ee Somali Media Center. waxaan leeyahay jiro jooga, waxaad samayseen Soomaalinimo ayaad abuurteen, fursaddan aad siiseen waan idinkaga mahad celinayaa. markaan intaa uga baxo halka hambaliyada, waxaan aad iyo aad u xambaareynayaa ee aan maantayto halkaan baaqaan aan ka soo jeediyey falka fawaaxishnimada ah ee loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee weli Maraykanku ku sii adag yahay, ee uu u geystay diyaaradihii dadka rayidka lagu duqeeyay oo uusan haba yaraatee meeshii la rabay in uu waxa weeye uu ka bixiyo cudurdaar ama raali gelin uu ka bixiyo uu ku sii adag yahay. waxa la yaab leh marka aad aragto shacabka dadka gobolada dhexe halka cadow ay leeyihiin maantay waa nimanka la yiraahdo al-shabaab. shalay iyaga ayaa gacantooda ku burburiyey. weliba marka la yiraahdo gobolada dhexe laga hadlayo ahlu sunnati wal jamaaca 9 sano ayay la dagaalamayeen. 2008 ilaa haddeer ayay waxa weeye ku naf waayeen, ku maal waayeen. weligood iyo allahood adduunka ama international community ama kuwa dhaargixisa la dirirka hal shilin waxa weeye ama hal caawano kama aysan helin. dadkii noocaas ahaa ma dhici karto, mana la aqbali karo in la yiraahdo al-shabaab baa idinku soo dhex dhuuntay. tii ugu dambeysay oo ay markii hadda ay Puntland ay gobolada ay ku qaadeen ay aadeen, waxa Soomaalidu waxa weeye sidii loo ogaabay gacmaha isku qabsatay. waxaan aad iyo aad marka uga xumahay. waxaan ahaa aasaasayaashii ama dadkii ka midka ahaa ahlu sunnati wal jamaaca ee baray shacabka Soomaaliyeed in ay al-shabaab dhiman karaan. uma hadlin, ma qarin, mana qarin karin. laakiin waxa weeye xaqu hadduu qaraar yahay soo qotomi maaha. waxaan aad iyo aad u sheegayaa dowladda Maraykanka in ay arrintaas magdhow ay ka bixiso, in ay raaligelin ka bixiso. dowlad waxa weeye way dhici kartaa error, friendly fire waa wax caadi, waa common. ciidamada isla socda ayaa dhexdooda wax iska dila, waxna iskaga dhintaan. laakiin waxaa la yaaba dadkii defeat gareeyay ee burburiyey al-shabaab in la yiraahdo al-shabaab baa tihiin, waa waxaan meesha qaban karin. marka aan taa uga baxo cambaareyntaas, codsigaasna aan dowladda Maraykanka u soo jeedinayo, waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo la isku soo jeedinayo. waxaan aad iyo aad uga xumahay in aan arko burburkii Ethiopia oo soo dhow in waxa weeye kaayaga lagu bedelo. waxaan aad iyo aad uga xumahay sirta ilmo qabatada oo danleyda kuwa la dirsaday ee maxashoodayaasha ah ee aan haba yaraatee ka xishoonin waxa weeye cadowgii soo jireenka ah oo I will do everything to be on the power. wax kasta oo maanta kursigaas ku joogayo waa sameynaya u jooga sida Cabdikariin oo kale ama Cabdiweli Gaas oo kale inaad maqashiin oo isku soo dishiin, inaad isku baabiisiin, inaad dhiiggiina ku dhaco. wiilka laga aruurinayo gobolada dhexe, caawdaaq laga aruurinayo, dhuusamareeb laga aruurinayo, gurceel laga aruurinayo, xisaabtan shalay meeshu waxay joogtay beeshii baa rag u fakereen oo waxa la yiri dadkani waa islayn. waxa weeye dagaalkii beeleedkii ugu dhamaaday, maxaan sameynaa 4.5 qoorta loo geliyo. 4.5 markii uu haddana la ogaado la yiri waxa weeye nina isagoo bara boqorkay ma uumina baxri sheekh wayskii dadka diinta bari jiray ma barba ma buuxa mise waaba brimo dadku baaxda dheeriya oo laga dignoon ka dignay oo aan u sheegnay oo inna akramakum indallahi atqaakum ay noqotay. ayaa haddana wax la keenay wax la yiraahdo federalism. federalismkii waxay noqotay marka maantay in waxa weeye beelihii Soomaaliyeed awal laba beelood beel iyo beel baa isdiriri jiray, waa la ogyahay gaalkacyo isku diriri jirtay. labadii beelood ma ahane qabaa'ilaadkii kale in ilmihii laga soo aruurinayo la leeyahay tol beelay annagu aan maamul hebel dhowrano iyo maamul hebel aan difaacano. fitnadii baa extension loo sii sameeyey. war waxaan idin leeyahay
علماء الدين كأهل السنة والجماعة وكع وحان إذن ليه أضياشي عقل وذو شقين جرو وكع وحان إذن ليه فرصة ذهبية مانتا نهرتها الله كواني صور نقون ميان تدكي إنك لبدبات سدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحوي ولا تقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق إنما المؤمنون إخوة ولا لا تهين تو هانس باردا ون وحان إذن ليه هاي دقالك حرب الإهلك وحكد حن وقف بن آدم وكل انت مجري ولا ليالو كجوك سدا ورضياشو صوبحا وروحا كوعد الجلية والله ما كنا ارتين ريقروي شعب كودو إنا يسن نبعين ري عدادو والله ري عدادو إنا يسن ريقروي ونبعين وحلقوه قادة أمانيه كان عيبتو لان سيدا اللي يقو قرمدي سيدا اللي يسكو قرب تاقنا سياسيين تا ما انت وأسوقو الدلي هاي رباه إنو وحوي رتيقا كوكحصدو وحوي أيا ربطا إنا شعب كالصوماليات سي أي دانتو دا قاران أي نقو بربريان waxaan idin leeyahay Ethiopia dan nooma hayso waxaan idin leeyahay oon idin sheegaya taariikhda dib u raaca wallahi baan ku dhaartay calool waxay ku bugtootay inaysan ku baskoon bacteria nin cabay waxa weeye sun ninka cabana waxa weeye ka durkoy sun la isku madayo daawo lagu waa war Ethiopia iyo dadkay wadato war damadjidid iyo dadkay wataan war siyaasiyiinta manaxaanka oo adduunkoodii aakhiradoodii adduunku ku seegatay ayaa 25 sano qaranimadiinii iyo qofnimadiinii iyo qoomiyadnimadiinii shacabka Soomaaliyeed oo idin dhaafisay dad ilaahay waxa u liitan inaan taariikhda wax ku qaadan war haday Ethiopia taa kula nasiinayso waxaan xalay hameen hore fiirsanayo ka ooyay ilaa iyo 20 kun 15 kun oo ciidan Ethiopian ah bay bakool jooga wadooyinkii bay kala baranayaan jidadkii bay kala baranayaan gabdhihii bay waxa weeye mushaarka markay qaataan waxay rabaan ku sameynayaan lama baarayo aidiskoodii lama oga afkii bay baranayaan dalkii bay baranayaan dadkii bay ku meelmayaan 95 milyan baa sidii daadkii nagu soo fiday waxaan aad iyo aad uga xumahay duruufaha socda candhamaylaha soo daldalayo boosaaso iyo hargeysa iyo waxa weeye ee ku daadinaya dadka maxaysatada ormada iyo maanteeto amxaarada iyo oo nagu dhex beerayo beeraha nagu falanayo dukaamada qabsato ganacsiga naga qabsaday dadkaygiina ay doomaha ku soo waxaynayaan ku baabaayaan ku dhimanayaan siyaasadda inaan fahmi weydaan intii yareed oo hartay marka hadii la yiraahdo tolbeelo reebro maanta yaan reebelna lagu ogaan dagaaladii heesihii 77ka aan waxa weeye aan amxaara ku qaadaynay la isku adeegsado bal fiiriya waxa weeye maanteeto waxa cadaado iyo ciidamadooda heesaha loo shiday bal fiiriya inda xumada ka weyn waa heesaha amxaarada u qaadaynay ayaana la isku kan adeegsanaya war waxa weeye wallahi hadaadan midigtaada bidixda aysan kaalmaysan waxa weeye inaadan waxba qaban karin waxaan hay one body waxaan hay hal luqad waxaan hay dad islaam ah war qabiil diinta islaamku ma banaana in la isku dilo warqadiyad kale oo meesha ta maxaa lagu diraa Mareykankii baa qirtay inuu naduqeeyay hadii ay seegtay kuwaan maaragtay maanta uu amriga sheeganaya kii Cabdiwalina inuu ka taxsiyay ahayd karno inuu yiraahdo walaalayaal hadda nimankii beeskii waxay joogan garowe BS2 hadda waa inay maanta magdhow noo bixiyaan oo mid noqon lahaayeen la qadarin lahaa ayaa mid bamdkii kale u dhaartay waa calaamatu fulay waa calaamatu doqonnimo Ethiopia ku soo hartay inkastoo abwaanadii dhinteen مرتدى لقوي الهامي إن يريا من عامري يا أولياء هراي أمان هيسا إرقى قبي آرتس يشيكو إليسكي ددوينها هي أركتدي النية إفكا وحان وچوغا إنان إيباعا بداي أنقرو أركانتي سسوغان آيادها الدينتا أجاشيدو قورتي إيمان إيباها قراني أفايانك الشعب كان هو آموس كرهيني أحدي وحان كمريا إنان أبد سليبين سومالاي أدونكي تقوى داركيسين عقلنا قسمو ينك لو وكسون ياهي أبارتو لهان جري لوا دور سنو إذيله إيه أون دبسدي باجرتيه مغل وراه ديد أدس إيه إثيوبيا كهرة آية حمدود آلدي هوكي بحنيان أرحجب ويان وآنك وقوم مخنددو آفاي هوغ أرين أقوب وحي كاقالي أركتي دير دون أما هاد أودي أهلين آلد حوق بدن له إنا ديارو الدوفتا ووحي سوا هان جري أخرس iyo inta la isku daray laga adkaa waaye abris iyo xaasiya naga dhargo ayar noocunay aamina ugaar baaniyo arisidiisii abtirkeena waxa loo dhigaa gaal islaam laqab aadmiga kuwii aan fakirin waa allow sahale ahay fiirsha jamaadahay dhiseen
awdmiga kuwii aan fakerin waa allow sahale ahay fiirsha jamaadahay dhiseen aaya xumadooda amxaar baan asxaar noo gelayn uruga mooyaane amaal kuuma galo ruux hadduu aabbahaa dilaye aqalkaaga kii kugu qabsada ooridiyo xaaska adigoo isdhaafshaa ka roon aarsadoon baqine arag maqal ujeeddadana garo eega waxa taagan anoon dhiban ayaa lay dhex dhigay iilka aakhare eh akhwaankow ilaahay ka baqa eheladiin daaya adinkaa fidnada nagu wadee beleda aashiinna argagixisadii caalamkaad nagu illayseene aamin ma leh adoogiis nin gubay dilay adeerkiise aamin ma leh adeerkiis nin dilay gubay adeerkiise ajaanibta adinkaa wato aayatiin rabine asxaan uma gashaan ruux muslimna ololin mooyaane kufriga adeegsada dhammaan ehlu naariinta alhumadu maxay ururtay oo aafa nagu reebta ardadii tacliinta iyo shacbiga aaba lagu toogta maxaa niman ugaasyaa suldaan ereyna loo diiday afdhamaandhow iyo yaab ku maqan amar ku taaglaynta aan weli ogsoonayn halkay eeday taladooda inta ay ajaanibu u talin odayadeeniidhe aqoon-yahano uu yahay kuwaas keenay amisoomta dhulka iyo hantidii aan lahayn iibiye gadaya igaday etoobiya wadiya carab u dhoofayno ardisababa ay xarabki tahay madaxdu aadayso ishi iyo abeedna la bariya ereyadii tuugta allahan ku dhaartaye dhulkani waa allow sahale arxan ma leh gumaystuhu dadyow waanad aragteen ununkiina kii goynayaan abid gargaartaan siyaasiga anfacraadiska xira albaabkiisa n f d etoobiya dhulkay aadan naga xoogtay afmadoow jabuuti iyo berbera awdal iyo huushe ujeedkaygu waa inay shantii idil midoobane ujeedkaygu waa inay shantii idil midoobane ujeedkaygu waa inay shantii idil midoobane